dhismaha xarunta saddexaad ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo ay taageerayaan bangiga adduunka ayaa muhiim u ah helitaanka howlwadeennada wasaaradda maaliyadda xafiisyo ku filan oo ay ku gutaan waajibaadka qaran ee saaran. wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo dhagax dhigay xaruntani waxa uu ballan qaaday inay xoojinayaan hufnaanta maaliyadda isagoo u mahadceliyay bangiga adduunka. farxad weyn oo maanta inaan halkan dhagax dhignay daartii labaad ee wasaaradda maaliyadda iyadoo daartii labaad oo dhinaca naga xigta la dhammaystiray dhawaan ku soo guuri doonto wasaaradda maaliyaddu daarta cusub dhismeedu dhamaaday waxa bixiyay oo inaga caawisay dawladda Sweden tan oo mataanteedii ah oo maanta dhagaxeedii aan dhagayno dhawaana insha Allah la bilaabi doono ayadana waxa bixiyay banka adduunka labadaba runtii aad baan ugu maadnaqaynaa waxaan ballan qaadaynaa in shilin waliba sidii dollar waliba ama shilin waliba sidii loogu talagalay u baxo yaan ballan qaadaynaa. wasiirka maaliyadda waxa uu inta ku daray in dalkeenu sameeyay horumar dhinaca dhismaha xarumaha muhiimka u ah adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha. injineer Mawel iyo injineer Cusmaan waxay ballan qaadeen in wax walba sidoo yahay loo sameeyo doono design-kii isla aragnay wixii loogu talagalay isla aragnay halkan yar agteedan galay maalin walba halkan iman doono aan isla eegi doono waxa meesha ka soo baxa noqdo wax jiilkiisu ku manaafacadsado inuu noqon doono ayaa ku talagaleynaa sida adduunyada kale laab iyo ma garanaysaa googoynaya waxaas aanay jiri doonin daartan sida loo dhisay waa si wax ku oole weeye oo taasan ka ayaa ka shidaal qaadanaynaa marka dadka Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa in dhismaha waddanku socdo waxyaalo badan imika la habeeyay oo la saaray oo loo baahan yahay inay yididiilo keento inoo keentay in hore loo socdo. dhismaha xaruntani saddexaad ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliyeed ayaa la mantaana ah xarunta wasaaradda labaad oo dhismaheedu xariga laga jaray bishii November ee sanadii tagday.